anigu farax ahaantayda nin qaad cuna ma guursadee sababahan dartood baan u guursadee tusaale ahaan oo kale ninkii qaadka cunayay horta nin aniga igu kooban maahe waa nin gabadh labaad ila qabo mujintii buu qabaa waad koowaataasi mujintii laftigeeda baa gabadh labaad oo iyaduna competition ka meesha soo galaysa talabaadana u guursaday ninka qaadka cunaa waxay tahay nin maba ahaba steelkiisu shidan yahay oo dadka cajibin karaya oo waayo waxa laga yaabaa qofkani inuu aan ismayl fiican ba sameyn karay inuu ilkaha uu qaad soo tuuray intuu 20 jirkii xayraan ku soo bilaabay anaguna 7 jirkii isku soo guursanay marka saddexaad aan nin qaad cuno waxaan u guursanaynin qofku ma fahmayo maahay oo qof adduunyo kale ku nool yahay soo marka qofani ma fahmaynin waxaan qofka isku soo dooranay inaan isfahanaan si dhow u sheekaysanaan asxaab noqono marka qofkan qof kale uu isaga saaxiib la sii yahayo waxaan ugu dhex jira third party marka ma guursan karo laakiin dhanka kale marka laga eego hablaha qaar waxay yiraahdaan inaan qaad cunin ba maaha waayo markuu ku soo daba istaago ninka qaadka cuno shirkiisa laga garanayaa markii waxa alla nin bay daba taagan wadada ka leexanaysa